بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan u fadhinaa guddiga dhaqaatiirta training ku jirto resident doctors waxaan guddigan u fadhinaa qaabkii aan ugu suguutin lahayn Dr. Ismail oo aan runtii ugu diyaarin lahayn programkii oo suguutinkii markaa waxa waaye Turkiga ku laaban lahaa annagoo runtii aad ugu xun inuu naga tago Dr. Ismail aad ugu mahadcelinayna waqtigii uu joogay shaqada fiican oo noo qabtay ka dhaqaatiir ahaan iyo guud ahaan isbitaalka maamulkiisaba waa aragteen waxaan bilaabnay program football oo wax waaye oo ugu talagalnay inaan ku suguutino Dr. Ismail oo hadda sii socdo insha Allah programmi kalena aan ku suguutinayna waxay ku sii jiraan inaan sii process gareyno aan insha Allah maalmaha nagu soo socdo aan insha Allah programmadaas aan dhameyno aad u mahadsan Dr. Ismail alla joogto shukr idris hojam Allah razuqu بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيني معدم مقصد مختار جوس استلقلا أستانم أستانميس دورت أي أونجي قلقي هجام دكتور إسماعيل يلمس بيزي به هستانية شوك إمك باردي إيتيل مرمزي شوك ديستيك دي سومالي دكيم تانيورسو أونو شوك سبدي بيزي هستانية جالس سانلاري أولاراك جد مدين أونون أدنى بو تورنوا يبتيك بيزي كونود مسين دي الله أمدان في تركيا دن رازي أولسون تشكر إدريس دكتور إسماعيل الناس تشكر إدريس koob lagu sagootinaya agaasimaha guud ee isbitaalka Digfaar Dr. Ismail Yalmas ayaa shalay waxa uu ka furmay xarunta isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho. Xalfada furitaanka ee koobkan waxa ka soo qayb galeen maamulka sare isbitaalka sida Dr. Ismail Yalmas, agaasimo ku-xigeenka isbitaalka Dr. Ahmed Ibrahim Nageeye iyo dhaqaatiirta isbitaalka Muqdisho Somali Turkisha. Dr. Ismail Yalmas oo muddo 4 bilood ka shaqeynaya isbitaalka ayaa dareen farxadeed ka muujiyay koobka lagu sagootinayay waxaana uu qiray in dadka Soomaalida ay ka wanaagsan yihiin wadamo badan oo hore markaa uga soo shaqeeyay. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yıl önce deseydiler ki Somali'ye, Mogadishu'ya gideceksin. Çok ihtimal vermezdim. Geldim. Buradaki kardeşlerimin, arkadaşlarımın yanında 4 ay gibi bir süre hizmet verdik. Allah'a hamd ediyorum. Ben ama sizlere söz veriyorum. İnşallah yine geleceğim. Burada gerçekten çok güzel insanlar var. Bu ülkeye hizmet etmek bir şeref. Allah'a şükürler olsun. O şeref bize nail oldu. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah Türkiye'nin bu coğrafyaya hizmetleri devam edecek. Çünkü Somali'yi gerçekten çok seven bir cumhurbaşkanımız var. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu ülkeye olan destekler devam edecek. Sizleri seviyorum. ciyaarta furitaanka waxay dhaxmartay kooxda ugu xoog badan tartanka isbitaalka ee Faransiga iyo kooxda Junior Doctors waxaana goobta wacdara ka dhigay ciyaaryahan Cabdifataax Xasan iyo Cabdullaahi Jaamac oo wada qaybsadeen bandhigii goolasha markii 4-1 ay dhigooda guusha ku raacday.